Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Khiyaarta ku xiran channelka Ibn Cabdullaahi meel kasta aad joogtaan iyo si walba ii daawanaysaan waa walaalkiin Sayid Axmed Cabdullaahi. Maanta waxaan idin wadaa 10 fariin jacayl oo qurux badan. Waxaan rajaynayaa inaad fahmi doontaan insha Allah. Daabasho wacan. Fariinta koowaad: markaad ku soo biirtay noloshayda, wax walba waxay ii noqdeen wax cusub. Waxaan saaxiib la noqday nasiibka, waxaana dareemay farxad aan la qiyaasi karin. Hadda waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhaho waan ku jeclahay. Fariinta labaad: weligay lama kulmin qof igula dhaqma jacayl, ixtiraam iyo farxad. Waxaan rajaynayaa inaan maalin uun baran doono inaan ku ahaado mid dhiirigeliye ah sida aad adiga ii tahay oo kale. Aad baan kuu jeclahay. Fariinta saddexaad: markaan ku eego, waxaan arkaa dhammaan waxyaabaha ugu wanaagsan ee noloshayda. Adiga ayaa sabab u ah inaan subaxii soo kaco anigoo adiga ka fikirayo. Adiga ayaana sabab u ah inaad noqoto qofta ugu dambaysa ee aan ka fikiro inta aanan seexan. Waad ku mahadsan tahay inaad ila joogtid. Waan ku jeclahay si aan dhammaad lahayn. Fariinta afraad: markii aan ku fikiray inaan ka tanaasulo qadarka ah in jacaylka dhabta ah uusan jirin, ayaad ii timid. Waxaad i tustay waxa ugu wanaagsan ee jacaylka laga helo. Waad ku mahadsan tahay inaad aragtidayda beddeshay. Fariinta shanaad: marka aad kelinimo dareento, kaliya fiiri meelaha bannaan ee u dhexeeya farahaaga oo xusuusnow halkaas waa meesha ay farahaygu si fiican ugu habboon yihiin. Fariinta lixaad: mararka qaar waxa dhan ee aan ka fikiro waa adiga. Aad baan kuugu xiise qabaa oo xitaa ma qiyaasi karo noloshayda adiga la'aanta. Fariinta toddobaad: waxaan mar walba ku fikiri jiray in qofka uu farxad la kulmi karo noloshiisa oo dhan hal mar, laakiin adiga kadib waxaan ogaaday in farxaddu ay tahay daqiiqad kasta, ilbiriqsi kasta, maalin kasta oo aan waqti kula qaato iyo daqiiqado aan gacmahayga kugu hayo. Fariinta siddeedaad: mar walba waxaan u maleynayay in jacaylku uu yahay dareen oo keliya, laakiin hadda waxaan arkay in ay tahay doorasho ula kac ah. Waana ogahay inaan ku dooran doono si kasta oo ay wax noqdaan. Adigu waxaad tahay qofta kaliya ee aan rabo inaan la wadaago dareenka farxadda badan ee aan hadda dareemayo. Fariinta sagaalaad: ma jirto gabar kale oo iga farxin karta sida aad adiga iga farxiso maalin kasta. Waxaad igu dhiirigelisaa inaan sameeyo waxyaabo aan ka cabsanayo inaan sameeyo. Waxaad i dareensiisaa inaan ahay mid gaar ah si aan kuu dareensiiyo dareen la mid ah kan aad igu abuurtay. Waxaan samayn doonaa wax kasta oo ku farxad gelin doono. Fariinta tobnaad: qof kasta wuxuu leeyahay dhiirigelin u gaar ah si uu u kaco subaxdii misena u wajaho maalinta. Anaa ku leh adiga. Haddaad ku qanacday, fadlan ku soo cesho. Mahadsanid. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.